Assalaamu calaykum asxaabta fahamka dunida oo carrada gubta. Mar kale ayay dunidu wajahaysaa xaalad aan horey loo arag. Mar kale ayaa fariimo digniin ah laga helayaa xarumaha sirdoonka. Mar kale iyo gantaalo nukliyeer ah ayaa hadalhayntu ku wareegaysa. Waana mar kale halkii laga baran lahaa khaladaadkii hore ayay dalalku bilaabeen inay ku tumanayaan khariirada nabadda. Ma tahay dagaalkii saddexaad ee adduunka? Mise tani waa digniintii ugu dambeysay ka hor inta aysan dunidu ku dhicin gad madow oo aan laga soo noqon karin. Sheekadan waxay kuu hogaamin doontaa safar mid ay ku buuxaan xaqiiqooyin siyaasadeed oo dhab ah iyo mustaqbalka mugdiga ku jira. U fiirso si taxaddar leh, la yaabso si qiiro leh, kuna ducayso in sheekadan aysan noqon mid dhab u dhacda. Si aan mowduuca si fiican iskula fahamno, aan u kala qaadno dhowr qaybood. Qaybta ugu horeysa, dunida oo ku socota xaalad garka u saaran qarax kale, dagaalo hoos u qarsoon, hub casri ah, tartan militari oo aan la shaacinin, iyo dowlado isku hub urursanaya si aan horey loo arag. Waxaasoo dhan waxay caddaynayaan in dunida aysan joogin xilli nabadeed, balse ay taagan tahay heer laga cabsi qabo in qarax caalami uu dhaco. Maraykanka iyo Shiinaha waxay ku jiraan dagaal gabow oo leh waxyaabo badan oo lagu barbardhigi karo dagaalkii uu Maraykanka la galay Midowgii Sofiyeet. Farqiga keliya ayaa ah maanta tiknoolajiyada, dhaqaalaha, heerarka cusub iyo awoodda sirdoonka ayaa ku soo biiray ciyaarta. Waxaa jira meelo badan oo qarka u saaran dagaal ballaaran. Midka ugu khatarsan waa gobolka Indo-Pacific, halkaas oo Taiwan noqotay bartilmaameed weyn oo xiisada Shiinaha iyo Maraykanka. Xi Jinping wuxuu si cad u sheegay in Taiwan aysan noqon doonin waddan madax bannaan, halka Maraykanka uu hub iyo taageero siyaasadeed si toos ah ugu dirayo Taiwan. Laakiin tani waxay ahayd bilowga oo keliya. Qaybta labaad, xiriirkii oo sii xumaanaya, caalamka oo lagu kala jabay. Marka la qiimeeyo xaaladda caalamka maanta, waxaa muuqata in caalamku si tartiib ah ugu socdo laba garab oo colaadeed, mid kastana leh saaxiibo, dano iyo istiraatiijiyad khaas ah. Kow, Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan, garabka ka soo horjeeda reer galbeedka. Waa saddex dal oo leh awoodo kala duwan, balse ay mideeyaan hal shay: kalsooni la'aanta ay ku qabaan nidaamka reer galbeedka. Ruushku wuxuu dagaal ku hayaa Ukraine si uu u muujiyo inuu ka soo horjeedo fiditaanka NATO. Shiinuhu isna wuxuu ku hawlan yahay qorshe ballaaran oo ku salaysan dhaqaalaha, tiknoolajiyada iyo militari ahaan xoojinta gobolka Aasiya. Iiraan wuxuu ka dhigay Khaliijka Dhexe goobo sii kacsanaya, isagoo taageeraya kooxo hubeysan, isla markaana isku dayaya inuu saameyn ku yeesho siyaasadda Bariga Dhexe. Dalalkan waxay u arkaan Maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka cid doonaysa inay gacanta ku dhigto dunida oo dhan. Iyaguna waxay sheegayaan inay difaacayaan madax bannaanida iyo nidaamyo ka duwan kan galbeedka. Labo, Maraykanka, NATO iyo reer galbeedka isbahaysi cadaadis ku sii yeeshay caalamka. Maraykanka iyo xulafadiisa sida Britain, Faransa, Germany iyo dalal kale oo NATO ka tirsan waxay sii kordhinayaan culayska ay saaraan dhammaan waddamadii ay u arkaan khatar. Una qabateen dhaqaale, hub u dirista Ukraine iyo saldhigyo ciidan oo lagu baahiyey dunida waxay ka dhigaysaa inay si cad isu muujinayaan. Dowladaha galbeedka waxay isku dayayaan inay ilaaliyaan nidaamka dunida iyagoo ku andacoonaya inay u taagan yihiin dimuqraadiyadda, xurriyadda iyo xasiloonida. Balse arrintu saas keliya maaha. Waa dagaal qarsoon oo lagu kala haysanayo dhaqaalaha, tiknoolajiyada, hubka iyo saamaynta siyaasadda. Saddex, Bariga Dhexe, goob kacsan oo burbur horseedi karta. Xaaladda Bariga Dhexe ee hadda ka taagan, gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, wuxuu noqday mid si toos ah u kala jiidaya quwadaha waaweyn. Ruushka iyo Iiraan waxay taageerayaan kooxaha reer Falastiin, halka Maraykanka uu si buuxda u garab taagan yahay Israa'iil. Qatar
Turki iyo xitaa dalal Arbeed oo horay u gaabsaday hadda waxay bilaabeen inay qayb ka noqdaan isbeddelka cusub. Halkaas waxay ka dhigan tahay in Bariga Dhexe noqon karo halkii uu ka bilaaban lahaa dagaal ballaaran oo caalami ah. 4. Taiwan, barta shidan ee u dhow qaraha. Mid ka mid ah meelaha ugu halista badan waa jasiiradda Taiwan. Shiinaha wuxuu u arkaa qayb ka mid ah dhulkiisa, Maraykankana wuxuu taageero siinayaa Taiwan oo doonaysa madax-bannaani buuxda. Haddii Shiinuhu ku qaado weerar, Maraykanku wuxuu u arkaa inay qasab tahay inuu ka falceliyo, waana halkaas meesha laga yaabo in rasaasta ugu horreysa ee dagaalka saddexaad laga rido. 5. Tiknoolajiyadda hub cusub oo wajigiisa beddelay. Waxaa jira waqti dagaal micnihiisu ahaa ciidamo is-horfadhiya iyo rasaas, balse maanta dagaalku wuxuu leeyahay wejiyo badan. Dagaal tiknoolajiyadeed, weeraro lagu qaado nidaamyada sirta iyo warfaafinta, dagaalka dhaqaalaha, cunaqabatayn, iyo dhaqaalihii caalamiga ahaa oo si ula kac ah loo kala jaray. Dagaal hoogeed, been abuur, marin habaabin, iyo maskaxda bulshada oo la weerariyo. Marka laga eego dhinac walba, caalamka maanta wuxuu ku jiraa xaalad aad uga fog xasillooni. Waxaan hadda joognaa meeshii laga bilaabi lahaa dhismaha muuqaalka dagaalka saddexaad. Awoodaha way kala garab qaateen. Qaybaha kala duwan ee dunida waxay isu diyaarinayaan dagaal aan weli rasmi ahayn, balse hindhaha lagu hayo. Waa dagaal xilli walba qarxi kara. Su'aasha kaliya ee harsan waa goorma. Qaybta saddexaad. Goorta rasaasta dhacdo, xilliga dagaalku bilaaban karo. Dagaal caalami ah mar walba ma bilowdo si cad, balse wuxuu bilaabmaa wax laga yaabo inay u muuqdaan dhacdo yar. Waxay noqon kartaa khalad, kacsanaan siyaasadeed, ama weerar aan la filaynin. Halkan hoose waxaan kugu falanqayn doonaa 5 meelood ee uu dagaalku si toos ah ugu bilaaban karo. Mid walba wuxuu hambaarsan yahay halis dhab ah oo dunida u horseedi karta burbur weyn. Meesha koowaad ee laga yaabo inay ka dhacdo rasaasta ugu horreysa, Taiwan, goobta qaraha ee Shiinaha iyo Maraykanka. Jasiiradda Taiwan waa meel shidan. Shiinuhu wuxuu leeyahay waa qayb naga mid ah. Taiwan waxay leedahay waxaan doonaynaa madax-bannaani. Maraykanku wuxuu taageero buuxda siiyaa Taiwan, hub, ciidan, iyo siyaasado isdaba joog ah. Hadduu Shiinuhu weerar ku qaado Taiwan, Maraykanka wuxuu ku khasban yahay inuu ka falceliyo. Waa halkii ay ka bilaaban lahayd dagaal badeed, hawadeed, iyo internetka ku salaysan. Waxaa la filan karaa in dagaalku u gudbo xuduudaha, u sameeyo Japan, South Korea, iyo guud ahaan Pacific Ocean. Halista ka dhalan karta ku dhowaad 50% dhaqaalaha adduunka ayaa mari doona marinka Taiwan. Waxaa baabaa noqon kara isku xirka tiknoolajiyadda. Jiibsiga dunida ugu muhiimsan Taiwan ayaa laga sameeyaa. Awoodaha waaweyn sida Shiinaha, Maraykanka, Japan, iyo Australia ayaa dagaal toos ah geli kara. Meesha labaad ee laga yaabo inay ka dhacdo rasaasta ugu horreysa, Bariga Dhexe. Dagaalka Israa'iil iyo Falastiin oo saameeya dunida. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas wuxuu u muuqdaa mid maxalli ah, balse dhab ahaantii wuxuu noqon karaa furaha dagaal caalami ah. Iiraan waxay hub iyo taageero siisaa Hamas, Hezbollah, iyo kooxo kale. Maraykanku wuxuu si buuxda u garab taagan yahay Israa'iil. Turkiga, Qatar, iyo dalal kale oo Islaami ah waxay bilaabeen inay si adag uga hadlaan. Marka dagaalkani bilowdo, Iiraan waxay weerari kartaa Israa'iil si toos ah. Maraykanku wuxuu difaacayaa Israa'iil isagoo u diraya ciidan. Ruushka iyo Shiinaha waxay u arki doonaan fursad ay kaga hor yimaadaan reer galbeedka. Bariga Dhexe oo dhan ayaa noqon kara goob dagaal. Xog muhiim ah. 3 dagaal ee adduunka horey looga saadaaliyay. Bariga Dhexe ayaa laga baqayay inuu bilow ku noqdo. Hadda xaaladdu waa mid aad u sii daran. Meesha saddexaad ee laga yaabo inay ka dhacdo rasaasta ugu horreysa, Ukraine, meel aan weli dagaalku ka dhammaan. Ukraine waxay weli ku jirtaa dagaal culus
oo Ruushku ku hayo. NATO waxay u dirtay Ukraine hub casri ah, tababar iyo taageero sirdoon. Haddii NATO si toos ah u gasho dagaalka, tusaale ahaan haddii Ruushku weerar ku qaado dal hubin ka ah NATO sida Poland ama Baltic State, xeerarka NATO gaar ahaan qodobka 5 wuxuu dhigayaa in weerar hal dal ah loo arko weerar lagu qaaday dhammaan xubnaha NATO. Taasina waxay bilaabi kartaa dagaal toos ah oo u dhexeeya Ruushka iyo NATO, ciidamada nukliyeerka ah ee ugu awoodda badan dunida. Dhibaatada ka dhalan karto Mareykanka, Britain, Faransa iyo Ruushka dhammaantood waxay haystaan hub nukliyeer oo keeni kara in hal magaalo qura oo la gubo ay ka dhalato in boqolaal magaalo la burburiyo. Meesha afraad ee laga yaabo inuu ka bilaabo dagaalka, weerar tiknoolajiyadeed oo caalami ah, dagaal aan la dareemin. Waxaa suurtogal ah in dagaalku uusan ka bilaabin rasaas iyo diyaarado, balse uu ka bilaabo weerar cyber ah. Tusaale ahaan, haddii Mareykanka ama Shiinaha weerar cyber ah ku qaado bandhigyada ama nidaamka korontada ee midba midka kale leeyahay, haddii Ruushku jaro nidaamka internetka ee reer galbeedka, haddii uu dhaco weerar lagu burburinayo warshadaha tiknoolajiyada ee muhiimka ah sida Intel, TSMC iyo Huawei, cawaaqibka ka dhalan kara dhaqaalihii caalamka oo burbura, baahi raashin iyo shidaal oo bilaabma, burbur maskaxeed iyo kalsooni la'aanta siyaasadeed. Waxaa la odhan karaa dagaalkii saddexaad wuxuu bilaabmaa iyadoo aan habadi dhicin. Meesha shanaad ee laga yaabo inuu dagaalka ka bilaabmo khalad siyaasadeed ama militari isfaham la'aan sababa qaraha. Waxaa la og yahay in dagaalo badan oo caalami ah ay ka bilaabmeen khalado yaryar oo laga maarmi lahaa. Taasi waxay dhalin kartaa weerar toos ah, taasoo markiiba dagaalka ka dhigi kara mid dunida oo dhan saameeya. Waxaan hadda ogaanay 5 meelood ee dagaalku ka qarxi karo maanta. Dagaalku waa qof kasta hubaal ayuu wataa, balse idna lama og inay marka hore toogato. Laakiin haddii habadda ugu horeysa dhacdo, ma jirto waddo dib loogu noqon karo. Qaybta afaraad waa sidee muuqaalka rasmiga ah ee dagaalka saddexaad. Marka rasaastu dhacdo, ma jiri doonto waqti la isweydiiyo maxaa dhacay. Waxaana hubaal ah in dagaalkani ka duwanaan doono dhammaan dagaaladii hore ee caalamiga ahaa. Waxaa meesha ka bixi doona kala dambeyntii, heerarkii dagaalka iyo damiirkii bini'aadamka. Qaybtan waxa aynu ku eegaynaa sida uu dagaalku u ekaan karo marka uu qarxo, qaybaha kala duwan ee uu noqon karo: nukliyeer, tiknoolajiyad, biyo iyo macdanta. Halista ugu weyn ee bini'aadamku wajihi karo: 1. Dagaal nukliyeer, dunida oo noqota qiiq iyo habarwacasho. Hubka nukliyeerka ayaa ah kan ugu cabsida badan. Dalalka sida Mareykan, Ruush, Shiinaha, Britain, Faransa, India, Pakistan, North Korea waxay haystaan hubka looga cabsida badan yahay ee nukliyeer. Waxaa la filan karaa magaalooyin waaweyn sida New York, Moscow, Beijing, Tokyo, Paris iyo wixii la mid ah in lagu dhufto gantaalo awood u leh inay baabi'iyaan kumanaan kun oo qof ilbiriqsi gudaheed. Saamaynta ka dhalata ay noqoto nukliyeer winter, hawadii dunida oo daba dhacda, beeralaydii oo aan wax beeran karin, carruurta oo khalkhal gasha. Dadka badankooda aysan u dhiman rasaas, balse ay u dhintaan gaajo, hawo sun ah iyo shucaac. Muuqaalka dagaalka siduu noqon doono 2 maalin gudaheed, wax ka badan 1 bilyan oo qof ayaa dhiman kara haddii dagaalku nukliyeerku dhaco, sida lagu sheegay daraasado ay sameeyeen machadyada Harvard iyo SIPRI. Dagaal tiknoolajiyadeed, internetka, sirdoonka artificialiga iyo weerar aan la dareemin. Xilligan cusub, dagaalku wuxuu ka baxayaa rasaasta. Waxaa la filayaa sirdoonka artificialiga oo loo adeegsado si loo ogaado ciidan, loo burburiyo nidaamyo. Weerar cyber ah oo lagu beegsado bangiyada, nidaamyada dowladda, isgaarsiinta iyo hosbitaaliyada. Drones iyo robot dagaaliyaal oo aan bini'aadam wadin, balse go'aamin kara cidda la toogto
tusaale ahaan ruushku wuxuu lahaa qorshe lagu weeraro nidaamka korontada ee Ukraine. Maraykanku wuxuu sameeyey weerar cyber ah oo joojiyey barnaamijkii nuclear ee Iran sanadkii 2010. Khatarta ka dhalan karta waxaa jiri karta maalin in kombiyuutarada go'aan ay gaaraan weerar nuclear. taasina waxay noqonaysaa halis aad u xun. 3. Biyaha, shidaalka iyo macdanta. Dagaal kheyraadka loogu dagaalamo. Haddii dagaalku yara bilaabmo, waxa uu noqon karaa mid kheyraadka lagu qabsado. Shidaalka yaa heli kara saliidda ugu badan. Biyaha, qaybo badan oo Afrika iyo Aasiya ah ayaa laga cabsi qabaa in biyo la'aantu sabab u noqoto dagaal. Macdanta, tiknoolajiyadu waxay u baahan tahay lithium, cobalt, uranium, kuwaas oo dalal gaar ah laga helo. Sidaa darteed, dagaalku wuxuu noqon karaa mid loo adeegsanayo hub si wax loo hado, sida uu u dhacay dagaalkii Iraq iyo kuwa Afrikada dhexe ah. Qodob muhiim ah, cilmi baarayaal badan waxay sheegayaan in dagaalka saddexaad laga yaabo inuu noqdo mid dhibaato ka bilaaba suuqa badeecadaha iyo maaliyadda, balse ku dhammaada gobolo idil ah oo laga wada qahay. 4. Dhibaatooyinka bini'aadamka, dad la'aanta iyo maskax murugsan. Marka laga tago rasaasta iyo tiknoolajiyada, dhibaatada ugu weyn ee dagaalka caalamiga ah waa qaxooti aan xuduud lahayn, dad badan oo u dhinta cudur iyo gaajo, maskaxda bini'aadamka oo dhaawac weyn gaarta. Carruur ku barbaarta xaalad dagaal ah waxay noqon karaan jiil cabsi iyo argagax ku nool. Qoysas iyo bulshooyin ayaa burbura, kuwo kalena waxay ku soo kacaan hagjirnimo, nacayb iyo is-aamin la'aan caalami ah. Tani waxay sababi kartaa in dagaalku sii socdo sanado badan, ama uu dhalo dun kale oo aysan bini'aadantinimadu jiri doonin sida maanta. Haddii dagaalka saddexaad ee adduunku uu dhaco, ma noqon doono dagaal guul laga raadiyo. Wuxuu noqon doonaa dagaal dunida dib u celiya. Boqolaal sano dunida maanta la joogo uma diyaarsana dhibaato noocaas ah, inkastoo ay haysato hubkii uu keeni lahaa. Su'aasha hortaagan bini'aadamka maanta waa: ma waxaan dooranaa dagaal ina baabi'iya, mise waxaan dooranaa wadahadal ina badbaadiya? Qaybta 5. Awoodaha dunida oo kala jabay. Dagaal lagu kala baxayo cidda hogaamin doonta mustaqbalka. Markii aan galnay sanadihii u dambeeyay, waxaa muuqata in dunidu u kala jaban tahay laba garab oo si hoose ugu loolamaya awoodda iyo saameynta caalamka. Midka koowaad waa garabka reer galbeedka oo ay hogaamiyaan Maraykanka, UK, Canada, Australia iyo dalal badan oo Yurub ah. Dhinaca kale waxaa taagan garabka kacaanka ah oo ay hormuud u yihiin Ruushka, Shiinaha, Iran, North Korea iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe iyo Afrika ee raba inay ka baxaan nidaamka reer galbeedka. Tartanka tiknoolajiyada iyo sirdoonka ayaa irka isku shareeray. Dal kasta wuxuu ku dadaalayaa inuu gaaro heerka ugu sareysa ee AI-da, nuclear deterrence-ga iyo hubka satellite-yada. Maraykanku wuxuu leeyahay nidaamyo si aad ah u horumarsan sida DARPA, halka Shiinuhu uu sameynayo horumar aan horey loo arag. Ruushku wuxuu dareemayaa in cunaqabatayntii lagu soo rogay ay keentay inuu noqdo dal gooni u taagan, balse xasiloonidiisa militari iyo tamarta dabiiciga ah ay weli yihiin hubkiisa weyn. Waxaa jirta xaalad lagu tilmaami karo dagaal qabow, balse markaan kama dhexeeyo laba quwadood oo keliya. Waxaa ku jira qayb saddexaad oo ah dalal yaryar iyo kuwo horumaraya oo rabo inaysan dhinacan raacin, balse hadda lagu khasbayo inay mid doortaan. Dhaqaalaha, tamarta iyo jidka ganacsiga. Halkee ayuu dagaalku ku furan yahay? Marka laga tago dhanka ciidamada, waxaa kale oo socda dagaal dhaqaale oo ka daran kii hore. Shiinaha wuxuu ka shaqaynayaa mashruuc weyn oo loo yaqaano Belt and Road Initiative, kaasoo ujeedkiisu yahay in la dhiso marinada ganacsiga ee isku xiraya Aasiya, Yurub iyo Afrika. Maraykanka iyo xulafadiisa waxay isku dayayaan inay jaraan saameynta Shiinaha iyagoo dhisaya isbahaysi dhaqaale oo cusub.
sida Indo-Pacific Economic Framework. Inta badan dagaalka maanta ka socda adduunka wuxuu ku salaysan yahay cidda maamulaysa ilaha tamarta, dekedaha caalamka iyo maalgashiga AI. Waxaa taagan su'aal weyn: dalkee noqon doona xarunta dhaqaalaha ee mustaqbalka? Mashiinaha mise Mareykanka? Mise waxaa soo baxaya awood cusub oo aan la filaynin? Ruushka, NATO iyo qarxii Ukraine. Dagaalkii labaad oo xasuus soo noqday. Dagaalka Ukraine wuxuu noqday halkii ugu horeysay ee dabka laga shiday. Ruushku wuxuu isku dayay inuu u muujiyo awoodiisa, balse NATO ma aysan u dulqaadan. Hub, dhaqaale iyo xoog sirdoon ayaa Ukraine maalin walba loo dirayaa. Wuxuu dagaalkani bidhaamiyay hal shay: dagaalka saddexaad ee adduunka ma noqon doono mid hal goob kaliya ka dhaca. Wuxuu noqon doonaa mid la isku dhex daray oo xagga internetka, hawada sare, dhaqaale ahaan iyo hubka culusba lagu kala bixi doono. Waxaa laga yaabaa in habadu ay hadda u muuqdaan kuwa ka fog dalal badan, balse xaaladdu si dhaqso ah ayay isu rogi kartaa. Dagaalka sirdoonka, halka xogtu ka noqotay madaafiic cusub. Hadda dagaalka ugu weyn ee socda ma ahan mid rasaas ah iyo taangiyo lagu dagaalamayo, ee waa mid lagu qabsado sirdoonka, xogta iyo maskaxda dadka. Dal kasta wuxuu maalgashi ku sameeyay ururadiisa sirdoon, kuwaasoo hadda la isku dardaray: CIA oo Mareykanka ah, FSB oo Ruushka ah, MSS oo Shiinaha ah, iyo hay-ado kale oo aan magacyadooda la shaacin, balse si qoto dheer ugu dhex shaqeeya Bariga Dhexe, Afrika iyo Aasiya. Xogaha la isdhaafsado waxay go'aamiyaan dagaalka bari dhici doona. Xitaa AI iyo tiknoolajiyada dijitaalka ah waxay si buuxda u qayb qaadanayaan dagaalka, laga bilaabo baraha bulshada ilaa sirdoonka macmalka ah ee daahfura qorshayaasha qarsoon. Waxaa dhici karta in la jabsado bangiyo, nidaamyo koronto, hawada sare, warbaahinta iyo xiriirka bulshada. Xogta dadka oo lagu kaydiyo Facebook, Google, TikTok iyo baraha bulshada kale ayaa la isticmaalayaa si maskaxda loo kala jibiyo, loogana dhigo dad si sahlan loo maamuli karo. Kacdoonada dadweynaha iyo saamaynta warbaahinta. Dagaalku wuxuu leeyahay wajiyo kale, kuwaasoo aan habad iyo diyaarado ahayn. Waa kacdoon siyaasadeed iyo bulsho oo si farsamaysan loo abuuro si wadamo loo wiiqo. Waxaad arkaysaa shacabka waddanka kacsan, iyaga oo aan si dhab ah u ogeyn cidda hurisay. Dhammaan kacdoonadaasi ha ahaadeen kuwa loogu magac daray Spring, Freedom Movement ama Revolution, waa qorshayaal ballaaran oo ay gadaal ka joogaan sirdoono iyo xoogag caalami ah. Baraha bulshada waa madal uu dagaalku hadda ka socdo. Hal tweet ama hal muuqaal oo YouTube ah ayaa sababi kara kacdoon lagu dumiyo dowlad. Tani waxay u muuqataa xorriyad, balse waa xorriyad la hagayo. Halista nukliyeerka, riyo murugo leh oo soo noqotay. Markii dagaalkii labaad ee adduunka dhammaaday, dunidu waxay la timid heshiisyo badan oo lagu hortagayo in hubka nukliyeerka la adeegsado. Laakiin maanta heshiisyadaasi waxay noqdeen warqad aan wax micno ah lahayn. Dalka North Korea wuxuu si toos ah u tijaabiyay gantaaladiisa nukliyeerka. Ruushku wuxuu uga dhigay reer galbeedka inuu yahay arsenal weyn oo aan marnaba la arag. Shiinuhuna si aamusnaan ah ayuu u aruursanayaa awood badan oo qarsoon. Hal gantaal oo nukliyeer ah ayaa kaliya ku filan inuu burburiyo magaalo oo dhan. Haddii ay dagaal toos ah dhaco, waxaa dhici kara waa musiibo caalami ah. Dagaalkaasani lama heli doono cid ku guulaysata. Qorshaha dunida cusub ma jirtaa cid maamusha dhammaan. Waxaa jira shaki weyn oo dadka qaar qaba in dagaalada maanta socdo aysan ahayn kuwa si dabiici ah u qarxay, balse ay yihiin qorshayaal la qorsheeyay. Miyaa dunidu ka warqabtaa qorshaha loogu yeero New World Order, halkaas oo koox gaar ah u hiigsanaysa inay dhisaan nidaam caalami ah oo dadkoo dhan lagu xakameeyo, laga bilaabo lacagta dijitaalka ah, caafimaadka ilaa xorriyadda hadalka. Waxaa la isweydiinayaa,
ma la qorsheeyey burburinta dhaqaalaha caalamka? Ma jirtaa cid kaliya oo damacsan inay maamusho bini'aadamka oo dhan? Su'aalahan ayaa si howli ah ugu dhex socda sirdoonyada, suxufiyiinta, falanqeeyayaasha iyo siyaasiyiinta, balse jawaab cad lama hayo. Halkee ayay dunidu ku wajahan tahay? Maanta waxaan taagannahay meel kala guur ah. Dagaalna si buuxda uguma dhicin, nabadna si buuxda uguma jirno. Waxa kaliya ee la hubo waa in dunidu aysan mar dambe noqon doonin sidii ay ahaan jirtay. Waxaa jira farqi u dhexeeya kuwa leh awood iyo kuwa aan lahayn. Inta badan dalalka caalamka, gaar ahaan kuwa saboolka ah, waxay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee la jiido haddii dagaal caalami ah uu qarxo. Dadka caadiga ah, kuwa ganacsiga yar, qoysaska danyarta ah, iyagaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa ugu weyn ee waxyeeladu gaarto. Ugu dambayn, digniinta caalamka iyo fikir furan oo laga faa'iidaysto. 1. Digniin caalami ah oo aan laga fikirin. Waxaan maraynaa xilli caalamku la mid yahay biyo hoos qulqulaya oo qarsoon. Digniintu waxay tahay: ma jirto cid u adkaysan karta dagaal caalami ah. Qof kasta waa uu khasaarayaa. Waa dagaal aysan jirin cid guulaysan karta. 2. Siyaasadda maanta: isdhexgal mise isdil? Siyaasadaha maanta waxay u kala qaybsan yihiin labo dhinac. Kuwa doonaya in caalamka uu isdhexgalo, dadkuna ay si nabad ah iskula noolaadaan, iyo kuwa doonaya kala qaybin, dirir iyo burbur ku dhisan cabsi iyo dan gaar ah. Su'aashu waa: ma doonaynaa dunidii mustaqbalka inay noqoto mid guul ah oo qof walba fursad helo, mise waxaan doonaynaa mid lagu tirtiro qoomiyado, carruurtu ay u dhintaan rasaas iyo baahi? 3. Qorshaha shucuubta: ma la ogaaday cidda ka faa'iidaysa? Cidda ugu badan ee khasaaraysa waa shucuubta, dadka caadiga ah, balse yaa ugu badan ee faa'iidaya? Shirkado waaweyn oo samaysta hubka, sirdoonno dano gaar ah leh, siyaasiyiin daciifnimo ku dhisan, iyo kooxo qarsoon oo doonaya inay maamulaan dadka iyagoo aan la garanaynin. Caalamku wuxuu u baahan yahay dad fakaraya, dad isweydiinaya, si aysan dunidu ugu dhaqaaqin burbur si sahlan loogu dhex dhumo. 4. Digniin dareen gelinaysa: haddii dagaal caalami ah qarxo, haddii dagaalkii saddexaad ee adduunku uu si dhab ah u qarxo, waxaa dhici kara ma ahan filim, ma ahan mala awaal, ee waa cadaab adduunyo. Magaalooyin duugooba, dad malaayiin ah oo hal saac gudaheed ku dhammaanaya, carruur, hooyooyin, aabayaal, dhammaantooda ku dhintaan dagaal aysan waxba ka ogeyn sababtiisa. Dunida oo gasha qarax aadane ku dhacdhacay waa arrin laga baqo, balse haddii laga fikiro waa laga hortagi karaa. 5. Maxaan samayn karnaa? Talada laga bilaabo dadka caadiga ah. Waxaa dhici karta inaanan wax ka beddeli karin siyaasadaha waaweyn, laakiin fikirkeenna, codkeenna, wadajirkeenna iyo doorkeenna bulsho wuxuu badbaadin karaa jiilka dambe. Ha noqon qof baaqi ku ah daawashada burburka. Noqo qof fikir ku furan oo damiir leh. Ka bilow qoyskaaga, bulshadaada, kana qaybqaado in fikirka wanaagsan uu bato. Maalinta aad fahanto in dagaalku aysan ahayn hal, waa maalinta aad noqotay geesi. Xasuustii dagaaladii hore. Dagaalkii koowaad ee adduunka wuxuu socday 4 sano, wuxuuna dilay in ka badan 20 milyan oo qof. Dagaalkii labaad isna wuxuu socday 6 sano, wuxuuna dilay in ka badan 70 milyan oo qof. Haddii uu dhaco dagaalka saddexaad, lama oga cidda noolaan doonto si ay u qorto taariikhda burburkaas. Ha noqon qof aan wax dareemin. Dunidu waxay sugaysaa dad geesiyaal ah, dad aan qori ku dagaalamin, balse fikir ku badbaadiya jiilka dambe.